dadkaasaan la hadlayaa gabdhaha laga fogaado waryaar labada aniga dhinac waxaa ka baxday gabdha macayna ugaas baana aniga dhegeyso horta ree isaaqo waxaa weeye dad keliya tahay waxaa degantihi waa gobolka jara dowlad degaankaba halkaad ka degtaan iyo ilaahay soomaaliya halkuu idinka dejiyey baa jarar ah jararna waa la wada ogyahay laba degmay ree cabdulluhu ku leeyihin laba degmana isaaq baa kule degmana nimankaa cusubaa nimankaa iskuul baa meesha kule oo waa la ogyahay gobolka jaro horta waa gobol population ah ee ma aha gobol aad majority ba aad ka tihiin oo aad iskuul baydan ba iska dhicin karin oo araarsiiyo idinku dhow baa intay rabtay idinka dili karto niman waxaa tihiin dhufaysiyo meelo uga qodan yihiin nimanka reer cabdille eed isku soo aadinaysaan war waa nimanka aan ku fadhino taariikh ahaan war la yaqaana waxaa naga dhashay waa qamaan iyo raagowgaas labaduba waa hayb reer xirsuugaasa niyoo halkaa midgaan dhalay oo ree wardheera ah oo ree isaaqa buu horta kaftan uga furaayo xariir oo kale ah waa midgo waxaana aad ka hadlaysid niyo garaad bay la baxaan anaa ku kalifay kaa haddadaa noo saaran dibbaha ay ku leeyihin gabdhuhu caayaa marna waa garaad baa lagu leeyahay hadduu garaad yahay ma ugaas buu la hadli karaa ibnu ugaas baa meeshan waa hawlo mataqaanaay ree isaaqooniyo horta ree majeerteen baad isu bedesheen waa laydin arkaa bidyo cad noqoteen dhabayo cad noqoteen idinkii iyo majeerteenba annagu godkaad gashaan ree isaaqo ma majeerteen baa naga idinka iska keena celin karaa majeerteen baa idin soo adeegsaday giddigiin waxaa tihi dhalmo cagjan nacala madaxweyne bidaarna talin maayo annagaa kule goormuu talin jiray in adeer addoon dhalay oon addoonsado oo waxa weeye calankaygu laba calan baan leehay midna waa kan ogaadeenyada ee ogaadeenka lagu sheegay ree cabdille yaa maanta onalif haysto midguhu dhalay halkee onalif ugaga tageen soo waxay ka yaaceen ma onalif maanta iyadoo sharaf leh oo dadaalayso oo horumar samaysay adeer soo laabanaysaa waana nin ree cabdillah waxa wato xisbiga onalif mucaarad onalif aanahay kurtigana ogaadeen oo dhan waa onalif nimankaa makaahil waa onalif int ogaadeenka kaloo dhan xitaa bahgari waa onalif run baan isu sheegaynaa wax axmaaro maanta 2021 lagu jiro wax axmaaro guumaysi dhabarka u jilciyey adeer jiljileeca idinka ree isaaq baa laga arkay ogaadeen maanta hadduu nin ree cabdillah fadhii lahaa annagu axmaaro meel baan saari lahayn dee bow nala yaqaan adeer waxaan samayn jirnay wallaahi inaan meel fog kaga soo hadhi lahayn ree isaaq axmaaraa tihiin gidigin wada goondhar iyo goondhan baa tihiin goondhar baa tihiin gebigan iyo baxardhaar baa tihiin ma dad nool baa tihiin midga dhalaa tihiin oo ree wardheere see wax idinka yahay war ma axmaaraad maanta nagu baryaysaan inayna guumaysatood naga gadaysaan ood lacag ku qaadataan nimankii ree cabdillah war axmaar adeer ima guumaysanayo horaan adeer oga dagaalamay weligay layma guumaysan haddaan ree cabdillah niyo codkaygii oo laandheeraysan oon ka keenay gobollada ree cabdillah sida gobolka nogob erar qoraxay iyo jararo degmada burqad iyo dhagaxmadow maalinguur ka degaan iyo burqado reewa isku shileeyiin iyo gaashaamo oo gaashaamo xitaa waan soo mariyay dhulkii nimankii garxajis ay qaateen iyo awaaray iyo gulagadaba garxajiska laandheere dhalay ma maqlaysaa dib u adeeg ku maqlaa brother 48 ba ka qaadato laba qofka marka hadalka siiyo qofka hadlo anigu hoos baan ku geenayaa oo ku soo qabanaya halkaas si sharaf leh marka uu fadhiyo ma fooday kartaa qolkayga ayar adeer hablo idin kala gacanta ishaar anigu ma waxba isku sheegay dib u adeer 48 baad ka xabaaraysaa adeerkii saa ugu dul istaagto 3 daqiiqo iska leh wixii caaron ka fogow wixii kala fiita cidna aan qiimeeyo qalbiga la ilaalinaya si fiican ka bax ka leexaniyo ka leex war horta waa adduun horta samaan aakhire weeyaan horta sayidow maanta naadir cumaamada ka dhacday xataa waxa aad maanta meesha kula kaftamaysaay waxa weeyaan waa midgihii xataa reer warfaa ma ah waa midguhu dhalay ee mataqaantaaye ee qabdar joogay weeyaan waxa aad maanta alla kaftamaysaa dhadiga ah ee dhadigu dhalay weeyaan wariyaahe ninkan kula hadlaya nacrad baa kugu taale ee kii kula kaftamayna wiil ree cali abu ahaa anigu waa wiilkan kula hadlaya waa wiil ree haaroon nacala hooyada ku yaa ree warfaa baan hayb halka la soo sheegtay war ree warfaagu miyoona lahayn anigu ninkaasi libin baan kuu sheeganayaa dhul aan kaa qaaday baan kuu sheeganayaa ugaasiyada adii oo aniga iga calaacalaya garaad culka jooji ninkii la aad lahayd muunan ahayn ninkii ilahaa garaad culka jooji 500 oo fardood marka aanu aan qabdaar iyo banka qorraxay aan kor istaajiyey ninkii igu lahaa ee baryayey ee garaad culka jooji
wargaraad colka jooji ninkii ilahaa munan awowga ahayd nacallaa hooyada ku yaale wiilka keliya ee onalef iyo isku qabtay xaggana guddoomiye ka ahaa xaggana madaxweyne ka ahaana muna wiil reer isaaq ahayn nacallaa hooyada ku yaale halyey ma kaama dhalinine nin kasta oo bahalkii ah oo naagooda oo jileeca baa kaa dhasha war dadkaagii soo kaan kuu aariyey maanan ahayn anigu waraago ogaaskanaad ku faanaysa iminka aad sheegayso ninkii abiskuulkaa markii uu soo dilay isaga oo kabihiisii wata nacallaa hooyada ku yaale intuu dhagax bur soo istaagay muunan ahayn anu markaan dilayey aan u aariyey maxaa tahay war maxabad baad ridii taqaantaa dhadib baad tahay dabaday kaaga dhacda war ogaadeen wax kasta oo lagu caayo haddii ay doqonnimo noqoto haddii ay wax kasta noqoto soo adiga maaha dhulka aad sheeganayso xageed maanta joogtaa war doollo soo adiga ka cararay maaha war doqonka ogaadeen doollo laga qaad markii la leeyahay maqaabul baa meeshaa joogay mayna deegaankaagii ahayn war anigu ilaa weyligu xidh ilaa bahalkii ninka gebageba ku sii marinaya maanan ahayn dhacalaa kugu taale eh ninka kula hadlaya oo wiil reer doolaala oo iska kaala baan ku idhi adigaagan iska kaale nacallaa hooyada ku yaale jife yar baa adiga saa kaaga adeegata nacallaa hooyada ku yaale kay halkaa kasii degayna ugaaskooshin buu ahaa waraa adiga oo macaamiis weyn xidhan oo orom ah oo qarmuunkaaga badan yahay baan dhagax buur marka aad timaado macaamiista kaa furaa nacallaa hooyada ku yaale sa gaadhi kusoo saaraa war hadday doqonnimo noqoto kuwii webiga sankoreynayay baad u tahay jaahilnimo hadday ay noqotona waaba la yaqaanaa waxa aad tahay xabadna weliga yaalaha meel aad ku riday ma jirto jife yar oo sheekhaal oonu dhannayn oo reer qudub keliya ah baa dhulkaagii oo dhan kaa soo qaatay dhegayso war ii qabaniyo nacalada wayuus telefoon buu galay ii qabo sida waa waa u falanta ridayahay sida niyo waa la sii nacallaa hooyadii ku yaal dayn ma yahay dhegayso yimaadeen wada waa marka dhagaha ugu ridayaa nacallaa kugu yaalay wiil reer doolaala meesha jooga xasa telefoon saa ugu cararaysaa dhilada waa ku dhashay waa wase codka dhegayso codka anaa iska kaala baan ku idhi codka war malay codka maqlaa codka dhegayso codkaygii oo waa laandheeraysan falays codkaygii iikaadii anaa aqaana kii horeba intuu hadlayay baan hadlayaa iga bax sayidow war sida codkaygii oo codka wasa ah oo garaad colka jooji kii aan lahayd ah garaadku dhalay baan anigu aan dusha u saarayaa aad adiguna aad waxaan ku leeyahay midgaanow aad aad waayahay laandheera dhalay soo qabso dheh haddaba sida shiidu tunka kusoo dhaq qofkaaga waa waxa kusoo soo qabtaa kala xadh ya ii soo qaba kala xadh hal doorka hal door hoos buu jiraan soo balaayir waa wiilka addoomaha wasa la yidhahda soo qabo kala xaad ayr gacanta soo taago iska daa beer ba soo qabo beer aya barbeer wadu gacanta soo taago hay tahay bahaladu waa qabow yihiin beerku beer qaboojiya waa beer qabojiye siida muudkaaga iigal xaggeen ka qaataa marka muudkaa iigal adeer weli anaa ku siinaya yaa kuusoo qaada alaqo waayahay ma maqlaysaa si toosa laandheere dhalay waay war waxaa soo qaadaysaa ibnu ugaas m16 soo qaad laandheere dhalay waa ninkii waxa weye kor kaga kaajiyey soo qabo leeyahay muudkaa iigal m16 aba m16 gacanta soo taago adeer waa kan waa hayaa si toosa waayahay hadda waxaa ku dambeeyey wiilkii reer shaaq wiilkii reer shaaq isagaa ku horeynaya bahasha sida idinku waday baa inuu ku wadaya anigu may maqlaysaa hadda qofka ku dambeeyey soo dee nogbaawi reer saaqa ku dambeeyey maxaa qalda marka ma haddana managa oo bal eeg oromku dhalay marka inuu orom yahay war ma nagu mudgal nacalad sacdii mudgal sacdii dhiig baa kaa socda mudgal de alago muudka galde Yow. alago adeer waa jiifaaye Ninka waa la ixtiraamay orom yahow orom dhalay no mudgal niyo sacdii mudgal sacdii xabib mudgal hay alago muudka taabay waxaan mudkii geli dee waaye waxaan dalfan ku celiyi doonaysa haddana haye balikaadii labadii ninba waa idiin soo muudgal hooyada hoose waqtigaana mudgal waa bal oromku dhalay shaaciyo muudka geli maxaa khaldan muudka ma igi gelisaani labadii ninba
dee muxuu sheegayaa marka maxay sheegaysaa marka sacdi waay maxay sheegaysaa waya marka taabo niyahow aflagaadadii waxa ayada joojiyeen dee wax sheeg ku dhawaaye waa kan mudka kasoo cararaya ilaana hadda ale bal aamusa dee war adigu oromadan moodaya inay wardawarsi ma aha meesha iyo galmuudka hooyada ku talle naas sacdi mudgal wallaahi dhalfa kalan kuu celiya wallaahi may kalan kuu qaadanaya oo dhalfan ku saaraya haddana mudgal sacdi way maqlaysaa nimankii dee sacdi mudkii geli waaye dhalay adoonku yow wareer dawka mudgal calad baa hooyadaa ku taal mudgal annaga yow xaalad baa annaga miyaadna dhasheen isaga falanqaa loo saaray muxuu la calacalaya ka yeer isagu markaa miyaadna dhasheen horta annaga dee adeer dee falanqaa loo soo saaray isagu muxuu la calacalaya mudgal hooyadii siilkeedu waa saanuun ma dhaline war hiid wabal hiidku yuni gaarin reer isaaqow midgaad tiiri hiidku yuni gaarinayaan masaasaad u kululaateen hasgarab yaacina wallaahi dhalfaad ila dhacaya oo wallaahi oo bilaaya haddaan hadda waa wallaahi kugu celinaya wallaahi arbeel daaji aamusi labadaba daji daadi aamusi waayeen beel daaji gala muudka kulligiinba nimayow adeer yaal alaqi iyo sayidow labana waaweyn baa tihiin mayga waa qaadateen waxaa isu sheegan lahaydeen nin walba saacad buu sheegtay haddaa is caayi lahaydeen caayi isuguma kiin harire nimankaas saddexda daqiiqo adeer ha ka dhawqinina hadii kale dee haw kalaa wadataan halkaas soo fariista edab yeesha ayaan kuusoo qaadaa sheego iyo adna kuusoo qaadaa sheego amar waa qaadasha nimayow hadalkayga hadal kaba dambeeyo halkaana soo kora labadiina maqlaysaa shaaciyo adeer waa ku maqlaa inaad laba nin ba isku garab yaacayaan anigu halkaas waxa weyn adeer laandheere laabta ka xaragoonaya in adeer hiidku yuu gaanin dadkan haye muudkayga dee u sii daamay gawaay soo qabso sayidow fiiri ninkan waxaa samaynaysaa mataqaanaa inaad adiga shaaciyo muudka gal niyahow naga gal muudka hadal malihidi nagu anaga soo qaadan sayidow soo qabso adeer haddaan ku arkaa dee qabso gacanta adeer wareer soo qabso dee sayidow kale dee inanteedii marka ma cadhood maxaa qaldan adeer dee muudka galka hoos buu jiraaye naga dacaydo soo laabanaya waa baxay oo qabsoon gacanta u qabsoon laakiin ma yar hadli karaa in arto in yar shaaciyo hooyada walaa ma cidna hadli kartaa walaa cidna ma aflagaadinaya shaaciyo cidna ma aflagaadinaya in arday shaaciyo muud si haddana toosa ninkan haddii kale walaa cidna ma warina cidna ma aflagaadinaya de maxaa qaldan waaba yimid muud waaba galle yimid waa yimid gala muud yow soomaali maxamed refresh dhaha marka waaye refresh dhaha madusha markaan sawirkaa soo saaray buu cararay waxa weeye mahdi kilcaawi iyo madusha wada hadlaya waxaa leeyahay ha keenu karina baash la socda waay allah hooyadaadii war meher sheegadka gal ku muud yaala muud gal niyow dee shaaciyo muudka geli dee wardahaye falanqadii maan la gaarin de inaad falanqadii maan la gaarin de abwaana u kaadi haddaba may maqlaysaa beero si fiican codkayga ma la maqlaa horta si fiican ma loo iyo maqlaa 8 daqiiqa ka qaadaysaa niyahow 3 daqiiqo oo waxaad leedahay banaan aan yar falanqayna u kaadi deena rag caaw laan reeyaal baa idin isaye 3 daqiiqo falanqaynta iyo abwaan daqiiqad macnaha muudka tiigaraadka baan leeyahay soo maaha 3 daqiiqo garaadkii baan ahay gal muudka inta ku dhacay 3 daqiiqo haddaba ay codkayga ma la maqlaa marka waaye si toos ah gal muudka jida war horta waa ka xumahay in maanta uu macnaha ninka dhaladku dhalay ee britishka uu la kaftamo afgaroocu dhalay ee sheegadka reer uu yahay aan la garanaynin horta waxaan macnaha ogaadeen baa sheegad leh haddaad maqasho horta waa reerkan ilaahay diinta soomaalina way taqaanaa macnaha 60% waxa weeyaan waa dad kale weeyaan waa DNA haddii la qaado waxa weeyaan waxaa kuu soo boodaysa jaarso obo shiikaan huwaanti waa kuu soo boodaya ma faati ninkan dhaladku dhalay ee britishka ee wiilka herdal guuleed inuu wax horta nooca la qaato mayg aad baan uga xumahay niyow reerkan uu sheeganayo ayaga iska saari waayey ayaga macnaha Soomaali uu sheegi waayey ninkan inuu sheegad yahay ayaga tunka ku wata laakiin maanta waxaan qaranaya malaha banaanka ka ogaadeen markaad maqasho reerka lagu lado ee macnaha de ogaadeen lagu yahay horta waa reer isaaq
ninkan nimankan reer cabdille waxaa la yidhahdaa jafaqaadig calool ogaadeen baa la yidhahdaa colool ogaadeen cawro ogaadeen baa la yidhahdaa cawro ogaadeen xabad ma ridaan hiil kale ma laha dabaday kaga wada dhacdaa fadalkoodii baa dhaba roob la yaalla dhaba roob ilaah baa ku dhaartee wiilka reer isaaqna maalinka uu dhasho waxaa loo ridaa macnaha soddonka qasnada ku jirta iyo qasnad isbeeraa loo ridaa macnaha si uu qorigaa u qaado macnaha because ogaadeen oo dhan baa ku lida libintiisa iyo xabadda uu ridaya tareysada marka waan ka xumahay horta inaad arkay uu noocan sheegadka uu la qaato waxaan rabay mid dhalada oo reer cabdillah inuu la qaato mayk haddii uu la qaadanayo sababtoo ninkan ma abtirsan karo hadda abtirsa hataa tirahdo ma abtirsan karo sababtoo you don't know ma oromba ma charsa lama yaqaano macnaha ninaan aabihii garanaynin oon awowgiis garanaynin inaad horta mayg la qaadato macnaha waa sumcad darro wallahi billahi tula am sorry waan ka xumahay haddaan joogi lahaana lamaada qaadan lahayn waxaan jeclaan lahaa mid dhalada oon garanayno inaad la qaadato reerkooda la garanayo marka reer cabdillah usoo noqonaya war reer cabdillah oromku dhalay waxaan ka kari waayey isdhaafiya ninka oo sheegadnimadiisa yuuna inimaad jaayfaynin laakiin maanta waxaan qarinaya malaa reer cabdille waa reerka ogaadeen ugu liitaa hadal muxuu sheegayaa hadal bay meel loo fadhiyaan waa ka fiiri nin kasta oo haliyey ah oo usoo kaca macnaha meel cidlo way kaga tagaan ku dhintaa fiiri cabdiile yaawe 75,000 oo wiil asagoo haystay difaaci waayeen maanta oromaa ku dubaysa xabsi baa lagu dubeeyaa aawe raaga ugaaskooda ay ka sheekeeyeen aawe wiil heer isaaqa u aaray wiil heer isaaqa u aaray wiil abiskuula baa intuu macnaha caloosha kala gooyey dhunta jaray wiil heer isaaqa u aaray okay mataan ciideed aawe war nin kasta u soo kaca kii u dambeeyay onalef aawe macnaha meel cidla bay lagu dilay haadu ku cuntay nin kasta oo u soo kaca oo haliyaa meel cidla bay kaga tagaan horta wararka noocaas anigu yaar war cod hal daqiiqa igu dar maadaama garaadkii hayna adeer macaan adeero garanimada war codkaygii oo dhalfadayda saaran oromku dhalay baan ku dubeeyey oo dhakada u saaray wiilka laandheera uma baahna codniyo sitos may maqlashaa mcgtda aad iyo aad iyo laba daqiiqo markaysaa ugu wada xambaaraysa 2 3 4 tan codkaysii markaan ku dhaho waa inaad soo tufta taana muudka iga aad iyo aad dadku ma wada hordaanin ma edab bay leeyihiin ma meydgaa la raadinayay waxba fahmi weynaa anagu qaleexa meydkii caruurbaa la isku soo daayay meydka alla kala gurto dhaawacyada hala kala gurto si toos qalbiyada si fiican u jabiyo horta adeerayaal labadiinaba bahaladiina waa jala ka fogow oniyo wallahi waxaan ku qaslay dhilada waxaa la yidhaahdaa macnaha intaada caayin bay ku caysaa oo iyada waxa lagu caayo yay kugu caayi ninka laba shay oo uu meesha ka sheegayba Soomaaliya raba inuu cadeeyo waa saabuun adeer saabuunta iyo hargeysa lagu siiyey saabuunta lagu yiri ku soo qabayso musqusha gal ku soo qabayso iyo oomada waa adiga cuntada mooday mataqaana shaambadiina sharaab ka dhigtay nacarad baa kugu taale on elf baa ka hadashay on elf adeer askari baad ahayd askari ninkii 1984 kaga dhawaaqay London you are nin heer warfaa uu ahaa fucking cabdille dhigax buur airport male oo jaamacad male waraa maanta waa lagu hareeraysan yahay haddaad istiraada meel u baxso xageed u baxsan xageed adeer aadi meel aad u baxsato male go'doon baa tahay wuxuu yiri ugaas kooshin iyo reer xisi haddaad irarka siinayso ugaas warfaa iyo samatar xirsi haddaad wada ataagayso haddaad army leedahay hubkana igu adkaysiini ood ila awood tihiin aaladii xoog usha habar yunis ayuu reer tolkaa aada la hayaay warbaas ka celisi dalka dhulkaagii kaa wada arursaday arki maysid eer iyo danqarad daa'id abadkaaye waa taad nogob iyo qoraxay orodka aadan war qoraxayaan igu timid iyo nogob oo igu tiri yaxli nimanka waa ku baryayaaye dalal guuleedkan aad igaga sheekaynayso eed ileedahay war dalal guuleed miyuuna ahayn kii la isku haystay oo la aqoonin ruux dhalay aan la aqoonin waraa club house-kana ka buuxaan niman kule
reer dalal guulid xirsi khalaf baan ahay warmatiid war reerka aad tahay ku kalsoonow yah reerka aad tahay ku kalsoonow dabkan aad shidi maad kuwa iskaga eegtid oo maad agoon yahow reetolkaa ruuxna oga artid oo ma adduunyada la dhacay ooda kaga qaadid oo adeerkaa caddiilay baa dilee maad ka aarsatid ree cabdillaa dilay adeerkaa ree cabdillaa dilay maad wax ka qabatid yah ree cabdille ayaa dilay okay waxaan kuu sheegayaa taariikh ahaan fiiri deegaanka keliyaad ka hadlaysaa waraa nairobi yaa fadhiyo magaalada islii yaa ka taliyo waa nin reer cabdillah yaa fadhiyo jubbaland oo welibana dee shalay buu adeerkey ma garanaysaa muxuuha magaciisa kii magacay ku sheegayeen hawiyaha guska u dhooqayay waraa 1960 ninka dowladdii u horreysay rayidka ahaa ninkii gaashaandhiga ka ah mataqaanaa wariikaadi wasiirka gaashaandhiga waa jaamac hiloole adeer codkaygii oo laandheeraysan oo reecadiliyeysan maxadroobaysan yuusufaysan khalafaysan xasan dheeraysan ugaas khalafaysan oo ree ugaas xisiyeysan ree warfaayaysan oo ka reexaya kabridaare laandheeruhu dhalay laandheere warwa saasoo la hadla adika yaa kuusoo qaada adeero yaa kuusoo qaada adiga guudka gelaya ka baxa waad maqlaysaa soo maaha si toosa laandheere waxaad soo qaadaysaa ninka la dhaho subeer ii soo qaad laandheere ninkaa birta ugu qoran tahay halkaasuu ila fadhiya dadku ila soo qabanayaa dee qolka hadda waxba ka imanwaxaad dareem now shaaciyo ma maqlaysaa no qofna xidigtaa saaran hadda maxaa halka ii saaran waxa ii saaran maduusha iyo kilcaawi iyo mahdi wada hadlayin adeer waad ka fogaanaysaa qofna xidigtaa saaran waa saaxiibkii weeye aniga new cidnaha saaran new shaaciyo anigu garan maayo waxa weeye waxaan wasan samaysanay waxaa samaysa ii soo qaad subeer boo ii soo qaadana subeer soo qabso subeero ma maqlaysaa واربعين مقطع شعيب سويرو سامي مكاروس يا سامي باش شقق لي وعادي هو سيدج هاي سامي سوق مركوي لاندير هاشي فريش على الكاشري وارمل مقطع شعيب سيد به ها نيوم مغشا ها شاحب ها واحد يسوق بتها كل حد هي سوق مثلا شام وسوق انا يقول سكيشنيه ما سوق عادي بدي كل حد سوق مركا هي ويا كل حد ما هذا السوق ظنيا كل حد صوتها قاعد قعد صوتها كل حد وقعد صوتها كل حد كل حد حقول شو يا بخت أغنية مي ما ادري أروى هرديشان هاي بحنينه مي مركز سوق سنة كده اللي قال لي هذيك سوق خير أنا معي هذا سوق السنة كل حاجة يا الشعيب مغشا ما عرفت هذا رودي ما ها وك مغلا شيء سوق بدي وبالرادين يا هذا يا ري هذا مركان لنا قفنا لقب بهاش صارنو ايغا سيده بني ادم بانا كمبيوتر مني هلو شاعي ما مقلسها اوك والله waraanu nin walba dayna markaan saa kugu sheego hore laga soo qabanaya hadda u soo qabaninka waa caadi in dadkiisi ba mudkaaga gal inaad ku jooga adiga kaagi وارتي ريا سوقبو اما ريا سوقبو ابل ريو يكل حد كبحو صولتها
bal adeero baxoo soo laabtay ba halkaa hoose ayaan ka eegaya aniga kusii sugay dhexda sii istaagaysaa miya ha waa kan ha qofka ugu hooseeya weya kala xaad hadda arkay ha aad iyo aad hadda waxaa ku dambeeyey wiilkii reer cabdulle eeqasha wiilkaa reer cabdulle saami war si toos waan ku maqlayaa lama maqla miyaaniyo aad iyo aad hadda waa lagu malawgaas si toos waa fadhi iyo 10 baa yaa la kala dhuumanay war mayka labaadna waan fadhiyaaniyo iikeedi baa mudka iiga 10 11 12 ada iska 13 markay saa ugu dhacdo dadku inaa hore iga siisaa warku waa dhay aad iyo aad takbiir sida aad iyo aad laan dheere dhalay warniyahow halkaas waxaa ku kaftamay qooqaagu dhalay waxa weeyaan labkii maxamed subeer iyo naagu dhalay waxa weeyaan mataqaanaa dhulkiisii qoladaa yar waxa weeyaan ciida galay ay ka qaadatay fulaygu dhalay nacallaa hooyada ku yaal halkaasaa maanta lasoo fadhiisanayaa dumarkaa lala sheekaysanayaa halkaasaa 24 saac lagu uunsanayaa majeerteen baa loo tegayaa markaasaa reer cabdilla lala soo xamanaya nacdal baa hooyadaa ku taal goondhab yahow goondhab ku dhalay waryaa wiilka reer isaaq 2021 buu goondhab xabashi iyo oromo u yahay 2021 ayuu goondhab wuxuu u yahay reer dalal oo waxa weeyaan mataqaanaa ah ii sheeg oo mareexaana waryaa generaal boogmadow nacallaa hooyadaa ku yaala maxaa goondhab adiga kaa dhigay oo uu gado uga dagaalamaya war magadaad leedahay adugu waryaa war anigu ninka ogaadeen ay ku faanaan ayaan ahay labka waxa weeyaan ogaadeen baan ahay waryaa ninka kismaayo xoreeyey taariikhdii madoobayd ee aad samaysay waryaa waa generaal mataqaana waxa weeyaan kanaad ku faanaysid axmed cumar jees nacallaa hooyadaa ku yaala caasho caydiid ninkii hubkii iyo ciidankii ogaadeen lahaa hawiye gacanta u geliyey fulayahow fulaygu dhalay waryaa 30 sano ayay igu qaadatay taariikhdii madoobayd iyo dhulkii aad hawiye siisay inaan soo celiyo anigu waryaa anoo labkii 10,000 oo wiil oo reer cabdilaa baa intay waxa weeyaan qoriga qaateen bay kismaayo xoreeyeen nacallaa hooyadaa ku yaale markaasaa adigana halkii xildhibaan ee axmed taajir ahaa ee kuu joogay baan duhur cad diyaaradda saaray nacallaa hooyadaa ku yaale khaniisku dhalay waa yahay muxuu yidhi cududooda u reetolkay caadil ku asiyey cirrigiiyo dhulkoodii ragga cadowka waatiiyo kuwii ciilka noo qabay ragga kaga cabaadsiiyey wuxuu yidhi nimanka birqod nimankii gube rayfal ku asiyey ee kaaraha cabaadiya shilkaha kala cabsoon waaya casar gaabadka nimankii gale ciiro kaga keenay kuwii curadadiis nacallaa hooyada ku yaale maan kugu sii wadaa marka waryaa dhulkaagii waxaa kaa qaaday jufa yar oo hoose oo reewgaas xirsiya oo waxa weeyaan ugaas kooshina nacallaa hooyadaa ku yaale markaasaa 2021 waxay ka soo baxayaan dhagax bur khaniisyahow khaniis ku dhalay haddii aad boog tahay oo aad fulay dhalay tahay ood naag tahay ragga lama hoos yimaado dalal guuleed baanahay war dalal guuleed isagoo naagtu uurka ay leedahay kii la watay ee waxa weeyaan kuu yimid miyuun ahayn sheegad yahow sheegad ku dhalay nacallaa hooyadaa ku yaale ee markaad fiiq iyo nogob iyo qabridahar markaad tagto aad tidhaahdid anigu ina waasixsiyaan ahay miyaadan ahayn adigaana sabad ka hadli kara khaniis yahow khaniis ku dhalay waryaa aalaqow ninkan kulama kaftami kartid magaca reer cabdille jifo hoose baan u tegaynaa mayga labaadna anigaa fadhiyaniyow khaniiskaa khaniis ku dhalay iskeena reer isaaqow waa la isqa qabanaya maanta niyo war codkaygii oo laandheeraysan oo waxa weeyaan reer cabdilaysan oo maxamed rooblaysan oo waxa weeyaan yuusufaysan oo waxa weeyaan xasan dheeraysan oo ugaas khalafaysan oo ugaas xirsiyeysan oo ugaas samataraysan oo codkii xirsiya oo ninkaasaa siiyey laandheeruhu dhalay markaas wuu ka soo baxayaa laandheere dhalay ugaas way maqlaysaa kalaxaadhow war ma la imaalnaa si wanaagsan baa lagu maqlayaa adeerow iyo 14
iyo 15 iyo 16 adaa iskale 17 codkaasaa siinaysaa ka fogow adeer meesha waxaa ku kaftamay habluhu dhalay oo ninbaa dumarkiisii la kaftamay ceebay tacaal hablaha iyagii baan la kaftanay niyow sayidow maanta waad ceebowday orom dhalay baad la kaftantay horta waxan iyo midgaha ah waa nimankii jifay yar oo reer haaruun ka mida ayaa dhulkoodii oo dhan ka qaadatay war birqod bay maanta oo dhan ku faanayeen war nimanka birqod fadhiya waa ayo warna allaa ku dhalay nimankii kugu gubayay yee ahaayeen soo jifay yar oo reer haaruun ka mida mayn ahayn naagu dhalay oromaa meesha inta layskugu keenay ayaa lagu leeyahay kaftama war nimankii ma reexaan intay gada ka soo duulaan naagu dhalay oy ceelxaar kuugu yimaadaan nimankay kala maranayeen maadan ahayn kanaa dheere gaadhiga iisaar ee adoo ooyaya intaad birqod igu timiday ad igu tiri ma reexaan baa saa ii galay een ku idhi ma saasaa lagu galay haa kaalaya soo fadhiista intaan gaas idinku bilbilay maanan kibriin idin qabadsin naaguhu dhalay markaasaad golo rag adeer baanaya oo ree isaaqaad meel intaad ugu timaadiin midguhu dhalay ayaad inaad la kaftantii doonaysin raago ugaas baa kuugu weynaa raago ugaasna yaa dilay wiiljad waa qacdeen birta ka aslay waa la yaqaana isagoo kabihiisii watuu dhagax burku yimid markaasaa la yidhi yaa dishay raago ugaas baan dilu yidhi isagiina halkii baa lagu dilay oo waa lagugu aaray naagu dhalay adigoo midgaana oo sheegad dhalay muxuu yidhi ree cabdilaanahay waniyow dee dumarku inaadeer tayo adeer mara injaynaatiin nacalad baa hooyadii dhashee tayo malihidin dumar dhalay baatiin on alefay ku faantameen waniyow rijaalku waa ka dagaalama markuu dagaalku joogo waa ninka baxa laakiin dumarku markay nabadu joogtaa wax loo dhiibtaa dee hablaha iyagii baa tiino waan idin dhiiban maanta hadduu dagaal dhacana dee inaad hablaha iyagii baa tiino waan idinka sii qaadanayna naaguhu dhalay maantoo dhan intay halkaa soo fadhiistay orom dhalay halkaa soo fadhiisiyeen oo canjeero ku nool oo orom dhalay oo xulbad cunaya nacalad baa waalidkaa dhashee ayaad wiil dhiigyo cabo oo ree isaaqo u imanaysa oo ree caliya midgaanku ee sheegadkii maxaa tahay midgaan dhalay baa tahay dee dhul malihid dhul baan leeyahay maantoo dhan war sheekhaal baa dhulkaagii kaa soo eryatay halkeed ku nooshahay halkeed dad kaga nooshahay banka qoraxay baad ku nooshahay banka qoraxayna waa la ogyahay adeer anaa u soo socda maanta halkeen taaganahay maanta halkeen soo socda inagumeed dhalay baa tahay oo laangaabe markaasaad rag intaad u timaadid awiyadaa gumayn jiray waa kii adeerkay lahaa waxaan addoontu dhashay anu dhexgeli maaye oniyo midgaanku dhalay ee alaqa ee oromku dhalaya ee 2021 la qarameeyey ee midgaankay kala hoos lagu dhex qarameeyey ayaan codkayga barida futadaan ka geliyay nacalad baa waalidkii dhashay si toosa way maqlaysaa sayidu xadka ka gudbiya ya ma ila socota qoraalka ku dir marti adeer waa kuu jeedaa adeer gacdiya sida maxaa noo haray 4 baydii baxay soo ma war soo saama halaqo ma 4 baa baxay 3 aad iyo aad waxa riyo way soo riyo 7 haray markaas uma 7 haray baasha xadka ka talaabiya heedka wax sigaasiya soo saara dad way riyo soo qabo riyo waayahay meelaha hoos u fadhiyaa qofka aad u kaadin baan naga idin dhaqaanaha daba dadka kale diiday yaasir soo qabo yaasir uu kaabay dadka ay la soo qabaan yaasir soo qabsadaan way ma maqlaysaa shaaciyo adeer yaasir baa ila soo qabanay hadda ma jirteen baa soo qabanay ma maqlaysaa shaaciyo yaasir soo caadi ma alabo riyo qolka haada yaasir waa caadina iska hadda qalla mitaada yaasir gacanta soo taaga adeer riyo adna gacanta soo taaga labadiinani والله ماشي لو كلات كذا عاوة
وبل يا مسيبل وبل يا مسيبل أدون كدلي والموتك قال موتك فريق عاد soo taago in adeer gacdi iyo kuma arko 2 milyan oo walaal meesha dhex joogtay maqlaysa shaaciyow waa hayaa yo wiilka iisoo qabo cali haaruun ugu qoran tahay waa hayaa subeer iisoo qabaan waa hayaa kaadi qabso adeer sideerna adiga hadda ku soo qaadaya riyo waa jooga sideerna ma le maqlo si toos ah muudkayga sideer soo qabsana muudkayga adigu hadeer taa wiilku dambeeyay wiilkii reer saaqbu ah maqla shari aad u weyn iyo 20 baa ka qaadaysaa 20 22 aad iska 23 marka codka kula hadlo sida sayidow maanta aad iyo aad baad horta u khaldantay markaad la soo shar istaagtay waxaan ku uri mataqaanaa meydku dhale meydadka canaantay meydadka ku faanta markaad waxaan ku uri mataqaanaa meeg la soo qaadato horta aad baan uga xumahay dadkan aad maanta la murmaysa eed waxa weeye mataqaanaa meeg la qaadanayso waryaa waa dadkii 2016 hadda loo sheego meydka canaananayo waryaa ee meydka dul taagnaa waxaan ku uri mataqaanaa dadkan aad maanta meeg la qaadanaysa ree cabdilla aad leedahay ma ree cabdilla wax ree cabdilla la waa maxay waxaad la maanta aad la shirtimid eed maanta noo soo hor istaagtay eed maanta nagu soo ceebaysay adiga oo laandheero oo nin ree isaaq oo ilaahay ka taxadaraya markaad maanta la soo dul istaagtay waxaan ku uri mataqaanaa nin ree cabdilla aan meeg la qaadanayaabaan horta waxaan ku uri mataqaanaa aad uga xumaaday raggan maanta waxaan ku uri mataqaanaa taariikhdoodu waxa ay ku kooban tahay iyo waxay ka soo bilaamatay iyo waxay ku dhamaatay waa naqanaa raggani soo raggii ma aha iyadoo la wada taagan yahay waxaan ku uri mataqaanaa ee malas ma dhimanin raggii laha ma yahay mise ma aha waryaa war raggii waxaan ku uri mataqaanaa jifa yar oo reer dalguuleed ka sii yaro waxaan ku uri mataqaanaa intay hoos galeen waryaa intay hoos galeen yidhi waxaan ku uri mataqaanaa malas maanta ma dhigto ilaa haddana waxaan ku uri mataqaanaa daba ordaya ee moodaya waxaan ku uri mataqaanaa rasuulo yar yara adoo ilaahay kaa taxadaray oo bannaan kaa dego waxaan ku uri ilaa iyo nagob salkeeda ilaa iyo waxaan ku uri jarar ilaa iyo waxaan ku uri burco agteeda ka soo noqdo inaad maanta la muranto oo waxaan ku uri la soo dul istaagto meydku dhalay ee meydadka canaanta ee naagaha ah aad iyo aad baan wallaahi sayidow uga xumahay waxaan ku uri maantana way kugu dhacday maalin dambena inaad naagahan mar dambe la soo hor fadhiisato maygna la soo qaadato waxaan ku uri mataqaanaa waan kaaga taxadaraya naagaha naaguhu dhale anaa maanta jifada ka tufaya 3 daqiiqo iguma fille ii qabo war ninkan ree cabdille ee la leeyahay ree cabdilla la yahay iyo ninkan aad leedihiin maanta waxbaa la waxeeyay ninkii nuur cabiriye uu lahaa sidii ree warfaa caday ma tuuraan caday war rag dagaalama maaha caday xitaa intay saa kugu turaan hish ma dhihi karayaan waraa ragganaad maanta la murmaysa adiguna ninka waxaad tahay geeska gees ilaa duni ka duni waxaan ku uri ilaa iyo waxaan ku uri mataqaanaa adduunkan maanta aana diyaarad dhagax buur ka soo dultegi karin waxayna uga soo dultegi karin waxa weeyaan laandheeranimadaada waxa weeye dhagax buur hal diyaaradii kama soo degi karto waxaysan uga soo degi karin ma idiin sheega waxa weeye waxayna uga soo degi karin waxa weeye way iga xumaatay waxa weeye naagaha naaguhu dhale markii ay hadda hayeen dadkan waxaan ku uri mataqaanaaye naagaha naaguhu dhale maanta aad leedihiin waxbaan la murmayaa wallaahi bilaahi tallahi aad baan uga xumahay midda kale naagahani shalay soo kuwii ma aha meydka canaananayay ee waxaan ku uri mataqaanaa naaguhu dhale ee shalay aad adigu ku tumanaysa eed meydkooda ku ciyaaraysa ee ninkii malas lahaa soo maaha adigu soo codka waxaan saaray naagu dhale ee waxaan ku uri mataqaanaayey la qarameeyey ee naagaysan ee waayahay suweer ma maqlaysa si wacan ma la maqlayaa ha ila sawirkaa bedelatay warniga waa dee iga raalli ah in ka yar baan ku dabageli ina ruux caadi وبل أورم كورليا مسي سيدو كان سعدي موت قال حبيبي سعدي موت قال لبدي موت كان كذا
ad ba adigii hooyadaaba ku taal orom iyo orom ku dhalay codkaaga saacadihii muudka lahaayeen maxaa kugu dhacay maxaad la ordisay wardi muriga gala xagan ka qaada nin baa waktigaan iska leh adeerayaalo muudka xigshada way dhacday tani adeer 25 baa ka qaadaysaa marka ku dhacdo 25 6